Gas waa erey guud lagu qeexo xaalado kala duwan oo ay wadaagaan hal shay. Si kale haddaan u dhigo, waa caabuq ku dhaca dahaarka caloosha ilaaliya. Xanuunkani wuxuu ka dhalan karaa infekshanka ay keento bakteeriyada dhalisa nabarrada caloosha. Iyadoo la joogteeyo daawooyinka qaar, xanuunka la iskaga yareeyo ayaa sidoo kale sabab u noqon kara gaaska. Xanuunkani waxaa afka qalaad lagu yiraahdaa gastritis. Dadka qaar wuxuu gaaska ugu dhacaa si degdeg ah, halka qaar kale ay qaadanayso muddo fog. Mararka qaar wuxuu dadka ku keenaa inay caloosha ku sameysmaan nabro, taana waxay kordhinaysaa fursadaha qofka ugu dhici karo kansarka caloosha. Laakiin nasiib wanaag, dadka intooda badan gaaska dhib uma keeno. Si dhaqso leh ayay kaga bogsadaan iyagoo qaadanaya daawooyinka gaaska lagu yareeyo. Waxay taariikhda reer galbeedka qorayaan in xanuunkani markaa ugu horeysa ogaaday Ibnu Sina mise Abu Ali Sina, oo reer galbeedka u yaqaanaan Avicenna, oo isku ahaa dhakhtar, mufakir, xidig yaqaan iyo qoraa Muslim ah, kuna magacaabay stomach cancer, micno ahaan loogu jeedo kansarka caloosha. Sanada 1728, dhakhtar ka soo jeeda dalka Jarmalka lagu magacaabo George Ernst ayaa ku magacaabay gastritis. Laakiin xanuunkani waxaa si fiican u qeexay dhakhtar kale u dhashay dalka Talyaaniga lagu magacaabo Giovanni Battista. daawadaha sharafta mudan, gaaska qof kasta calaamado kuma keeno, laakiin calaamadaha lagu aqoonsado waxaa ka mid ah xanuun nuuciisa lagu cabiro olol mise gubashada laga dareemo caloosha qaybteeda sare. Soomaalida qaar waxay xanuunkani ugu yeedhaan bug xanuun. Bukaanada qaar wuxuu xanuunka u daran yahay cunada kadib, halka qaar kale nafis dareemaan cunno qaadashada kadib. Lalabo iyo matag, cunno qaadasho la'aan. Haddii gaaska uu la socdo nabarrada caloosha, calaamadaha lagu aqoonsado waxaa ka mid ah in dhiig lagu arko saxarada iyo mataga. Waxaad u baahan tahay inaad la kulanto dhakhtarkaaga mise dhakhtarka kuugu dhow haddii aad calaamadaha gaaska isku aragto in ka badan asbuuc. Haddii ay gidaarka difaaca caloosha uu noqdo mid tabarbeelan, wuxuu u nuglaan karaa in dheecaanada caloosha soo daysa xilliga dheefshiidka ay waxyeelo gaarsiiyaan, kadib caabuqa uu halkaasi ku bilowdo. bakteeriyada ugu caansan caloosha infekshan qaasisa waxaa lagu magacaabaa Helicobacter pylori, oo mararka qaar loo soo gaabiyo H. pylori. Aqoon dhammaystiran lagama haysto siday bakteeriyadan u faafto mise u fido, laakiin waxay xogaha qaar tilmaamayaan inay ku gudbi karto cunnada iyo biyaha wasakhaysan. Tiro xanuuno iyo xaalado isugu jiraan ayaa kordhin kara fursadaha uu qofka ugu dhici karo gaaska, sida xanuunada lagu kala magacaabo Crohn's, sarcoidosis. Waxay xanuunadani jirka aadanaha ku kordhiyaan unugyada caabuqsan. Gaaska waxaa u nuglaan kara dadka joogteeya qaadashada daawooyinka qaar la iskaga yareeyo xanuunka, sida ibuprofen, dadka isticmaala mukhaadaraadka sida khaadka, sigaarka iyo taabuuga, dadka qabatinka ku leh kokaynta, dadka qaba stresska haddhaafka ah, dadka si joogtada ah u isticmaala sharabyada aasidka leh. Maadaama bakteeriyada keenta gaaska aqoon fiican aan laga haysan, way adag tahay in la helo sida saxda ah xanuunkani loogu hortagi karo. Laakiin waxaa jira tallaabooyin ay macquul tahay in lagu yareeyo gaaska, sida in si joogto ah gacmaha loogu dhaqdo biyo leh saabuun, in la qaato cunnada si dhammaystiran loo kariyo.